wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Somaliland Aadan Diriye Cigaal ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo laga hadlayay waxqabadka iyo horumarka jaamacadda Sanaag University ay ku tallaabsatay muddadii ay jirtay. waxaana kulankaas oo mid si sare loo soo agaasimay ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka heer gobol heer degmo madax dhaqameed maamulka iyo macallimiinta ardayda iyo marti sharaf kale. waxaana kulankaas ugu horeyntii halkaasi ka hadlay chancellorka jaamacadda Sanaag University Xasan Ibrahim Axmed ayaa isagoo halkaasi ku soo bandhigay film documentary oo ka warramaya marxaladii kala duwan ay soo martay jaamacadda. waxaana uu gudoomiyaha jaamacadda Sanaag University Xasan Ibrahim Axmed uu mahad celiyay xukuumadda Somaliland iyo waliba jaaliyadaha dabadda iyo waliba qaar ka mid ah shacabka sare Sanaag oo ka qayb qaatay horumarinta jaamacadda Sanaag University. waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha hore gobolka iyo gudoomiyaha degmada markaan ahaa haddana waxaan u mahadnaqayaa gabdhihii Soomaali reer Sanaag dhagaxii horeeyay halkan aan joogno waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta kelmad quraan ku noqonaya dawladdu wax badan bay gobolada siisaa. waxaan u malaynayaa wixii ugu yaraaday inaga soo gaaray maalbana waynu sheegaynaa goboladu ma sheegaan baan leenahay madaxweyne anagu intii yaradeen la soo taagnahay maalin walba waa nala siiyay inaan abaal dhicin baa ka muuqata hadal badan uma baahna waxay u baahantay jaamacadda hawl badan waxaan dadka reer Ceergaabo ee dibadda jooga diaspora ku dhiirigelinayaa anigoo reer awdana jaamacadda Amuud hirgashay maalintii la bilaabayna waan joognay maantana waan la joogaa muddo yar baa u dhaxaysa dadkii ugu dambeeyay kulankaas soo afmaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Somaliland Aadan Diriye Cigaal laakiin waan buuxinayaan intii qolada diaspora dibadda maqan shaashada iga daawanaysa way yar dhagaada yiintooda badan waa ma orod la kala dheere orod sama gobolada waxa kale hor istabahatay jaamacadda Sanaag University ayaa imka u muuqata mid horumar weyn ku tallaabsanaysa marka loo eego dhinacyada waxbarashada iyo waliba dhismayaasha kala duwan ee ka samaysay xukuumadda iyo waliba qaar ka mid ah ashraaiga waaweyn ee ka jira caasimadda gobolka ayaa imka u muuqata mid meesha ka saaraysa baahidii loo qabay dhinaca waxbarashada ee jaamacadaha. Cali Aadan Daahir, telefishinka caalamiga ee Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.